الحمد لله القاهر فوق عباده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي الكلام، maanta waa barnaamijkeena ugu horeeyay ee khayriga kanaalkeena iftiinka ummadda. waxaana idinku talagalay maanta inaan isku baraarujino bishan aan ku jirno ee shacbaan. bishan shacbaan iyo acmaasha nabiga calayhi salaatu wasalaam ka sugnaaday samayn jiray bishan marka la gaaro. bishan shacbaan waa bil aad u fadli badan, ilaan waxay u dhexaysaa bayna rajab wa ramadaan. nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka sugnaaday xadiis uu warinayo usaama ibnu zayd oo nabiga calayhi salaatu wasalaam oo weydiinayo, rasuul allow ku arkin bishan oo bilaha kale aad kaga soon badan tahay shacbaan. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu u jawaabay, waa bil dadka ay moogan yihiin, ilaan fadliga rajab iyo ramadaan ayay u dhexaysaa shacbaan. waa bil acmaasha kor loo qaado oo ilaa rabbi alcaalamiin. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay, anigana waxaan jeclahay camalkayga kor loo qaado anigoo sooman. waxaana ka mid ah acmaasha nabiga calayhi salaatu wasalaam ka sugnaaday inuu soonka badin jiray, soonka sunnaha ah. sidoo kale qiraa'atu qur'aan, aqrinta qur'aanka inuu badin jiray. luzuumu lwaajibaat, yuu laazimi jiray waajibaadka, yuu laazimi jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam. sadaqaadka ayuu la bixi jiray bisha marka la gaaro. culimadii hore ayagana waxaa laga soo wariyaa in bishan marka la gaaro ay aad u soomi jireen, ay ku dadaali jireen acmaasha wanaagsan qur'aan akhriska. ilaan bisha inoo soo socota hadda ee ramadaan ayaa waxay u tahay tababar oo diyaar garow ayay samayn jireen bishaas ramadaan. bishan marka la gaaro kala barka bisha shacbaan, ilaahay subxaanahu wa tacaala fayughfaru lijamiici khalqi, ilaahay wuu dhaafayaa dunuubta oo dhan. laakiin waxaa loo dhaafaynin laba qofood. midka koowaad waa almushrik, qofka mushriga ah oo ilaahay wax la wadaajiyey. midka labaad waa almashaaxid, qofka walaalkiisa aan la hadlin oo wadada u qaba oo walaalkiisa la coloytimay, walaalkiisa ka hijrooday oo gooyey. labadaas qofood ilaahay subxaanahu wa tacaala dunuubtooda ma dhaafay, almushrik walmashaaxid. walaalayaal, bishan oo caawa ay tahay jumca aan ka faa'iidaysano. ilaahay subxaanahu wa tacaala acmaash kor ayuu qaadayaa, addoommadiis dhan wuu cafinayaa, wuu dambi dhaafayaa. laakiin marka laga reebo labada qofood aan sheegnay, almushrik walmashaaxid, aan iscafino. walaalkaa hadduu aad gardarneed cafi, hadduu kaa gardaran hataa cafi. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay, waliyacfuu waliyasfaxuu alaa tuxibuuna an yakfir allahu lakum. iscafintu, isu saamixidu waxay ka mid tahay sifaadka nabigeena calayhi salaatu wasalaam. faman cafaa wa aslaxa faajruhu cala allah inahu laa yuxibu alظaalimiin. qofka dadka cafiya, ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu siinayaa ajar aad u ballaaran. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu siinayaa xasanaad aad u ballaaran oo weyn. ilaahay subxaanahu wa tacaala jannadiis, ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ka hadlaya, wuxuu yihi, wasaaricuu ilaa magfiratin min rabbikum wa jannatin carduha asamaawaatu waalardu uciddat lilmuttaqiin aladiina yunfiquuna fi saraa'i waaldharaa'i waalkaadimiina alghayda waalcaafiina can innaas. dadka cafiya, ilaahay subxaanahu wa tacaala dembiyooda ayuu dhaafayaa. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu siinayaa darajo aad u ballaaran.
قف مجرو وإلهي ترتيس ولا الكيس وعفيه إلا إله سبحانه وتعالى وزيادنا يا عزا شرف إله سبحانه وتعالى زيادنا ولا ليال أنا أسعفينه وشيء خالية ولا لك عفي إله سبحانه وتعالى أنا وحد ويادين مش أيام سكوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.